xildhibaan Cabdisamed Sheekh Aadan oo ku magac dheer Jamaada isla markaasina kamid ah xildhibaanada xisbiga kulmiye ee golaha deegaanka Gabiley ayaa si adag uga hadlay aflagaadadii dhex martay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Xaaji Cali iyo xildhibaan xisbiga wadani ah oo ka tirsan golaha deegaanka Gabiley isagoo arintaasina ku eedeeyay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Xaaji Cali isla markaasina ku tilmaamay ruwaayad uu xisbiga mucaaradka ee wadani ku khalkhalgalinayo xiriirka bulshada gobolada Gabiley iyo Togdheer isagoo arimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri horta wadanka waxa ka jira xaalad abaareed in hadal kalena loo baahna marka Ilaahay waxaynu horta baryaynaa in abaaraha Ilaahay naga soo furto oo sida ugu dhaqsaha badan leh nimcadiisa inoo siiyo inta kadib waxaan ka hadlayaa bariyaan waxa la isla dhaxmariyay hawlo dadka la iskaga horkeenayo oo xisbiga wadani wado hawlahaas oo xirsiyo xirsiyeedan waxaan ku matalayaa jawaan iyo sooraan وحسبي وطنهم عد وحلا يالي وح كلمة جريدة dadka in la iska horkeena dhibaatay ku tahay dalka Gabiley iyo Burcaan isma diidana meel loo kala sheekay maayo bari iyo galbeed looma kala sheegayo Sakariya Nuux Ibrahim telefishanka caalami waa Bari TV gobolka Gabiley